soo dhawaada daawadayaal meel kasta oo dunida dacalada aad naga daawanaysaan sawirkan iminka ay muuqda waa xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ayaa laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xilli uu ku sii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ciidamada ka tirsan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ayaa la sheegay inay ka celiyeen xildhibaankaani safar markaas uu ku tagi lahaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanka oo maanta sidoo kale tagay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa markaas loo diiday inuu halkaas ka hadlo isla markaana uu jeediyo oo uu sharaxo waxyaalihii ka qabsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaarkood waxay soo jeediyeen in xildhibaanka hadalka la siiyo sidoo markaas uu sharaxo isla markaana warbixino dheeraad ah oo bixiyo bal wixii ka qabsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho intaas waxa ka dambeeyay waxa hareeyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya buuq aad u fara badan ayadana xildhibaanada qaar ay soo jeediyeen in xildhibaanka hadalka la siiyo taas oo ka muhiimsan ajendaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta oo halkaas ku lahaa ajendaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ahaa akhrinta koowaad ee sharciga tacliinta sare ee soo gudbisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wixii intaas ka dambeeyay waxa isqabsaday xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya buuq aad u fara badan oo ay sameynayeen xildhibaanada qaar tan ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay taagnaa khilaaf ba'an oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed taas oo ka dambeysay kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay doorashadoodu ay tahay magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed ay markaas taageero xooggan u muujiyeen joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya intaas wixii ka dambeeyay waxa jiray barnaamijyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo deegaano qaar kamid ay ka dhigayeen barnaamijyadan waxay ku taageerayeen go'aanka xildhibaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ayagu taageero xoog u buujiyay joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya intaas wixii ka dambeeyay waxa jiray markaa khilaaf ba'an oo markaas aad u ka soo kala dhaxgalay dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale waxa horar garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho lagu celiyay xildhibaan sareed oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka inkastoo markii dambe la sii daayay oo ay safarkeeda caadiga ay ku tagtay magaalada Baydhabo daawadayaal wixii warar ku soo kordha halkan ayaad ka daawan kartaan dabcan page-kan Leaderman si share gare isla markaana soo follow gare hadduu soo follow ku ahayn YouTube-keena dhabalka dunida iyo barteena TikTok iyo sidoo kale waxa soo follow gareyn kartaa barteena X ama Twitter hore loo dhihi jiray aad iyo u maasantay daawade